waa muhiim dadka beeralayda inay fahmaan waxyaabaha uu seedku u baahan yahay si beertaadii wax soo saarkeedu uu kor ugu kaco oo wax badan ah u soo saartid. marka videogan waxaan uga hadlaynaa waxyaabaha seedku u baahan yahay oo laga maarmaanka ah si uu si fiican ugu soo baxo adigina aad faa'iido badan uga heshid. fadlan ka faa'iidayso. السلام عليكم كسر هذا الفيديو كل يدين جاري سفام صومالي ونقول ترجل إن كيف يستندك كصوماليات معي جو على باشي. فضلا هدي أكو عصبتك كنال كان سبسكرايب ده بالكنا تابو سي سكودا في فيديو كستان وصور دقنه لنا وذاك ووجد بولا الله كلا صوماليات سي وقف يديستان ومع سنتين. sidaan sheegnay videogan waxaan uga hadlaynaa waxyaabaha abuurku u baahan yahay si uu soo baxo. dabcan waxyaabo badan u baahan yahay waxaan ka hadlaynaa kuwa ugu muhiimsan oo abuurku u baahan yahay si uu soo baxo isagoo siman oo wax soo saar fiican leh. marka koowaad horta waa maxay seed? seed waa qaybta ka midka geedka ah oo ka soo baxdo mirta cusub ee geedka noqon lahayd ay ka soo baxdo weeye seedku ama abuurka. marka waxaa jira seed kala duwan oo aad u badan. geedaha qaar waxay sameeyaan seeds aad u fara badan, qaarna waxay sameeyaan kuwa kooban. inta badan seedsku waa wax adag oo haddana yar. seedska yararka tusaale ahaan waxaa noqon kara coconut tree oo kale oo seeds aad u weyn leh, iyo cawska ama geedaha yararka ah oo qaarkood ay leeyihiin miro aad u yaryar oodan arki karin oo la talaali karo. geedaha loo yaqaano marka cash cropka oo qudaaraha iyo vegetables-ka u badan, kuwaas waxaa la abuuraa iyadoo la isticmaalayo qalab oo special ah oo loogu talagalay ayaka ilaa hadhow inta laga bixiyo lagu talaalo beerta weyn. sababta taas loo awoodi karaana waxa weeye in mirihii ama qaali yihiin, qalabkan in lagu abuuro waa ka soo noqon kartaa, waa u qalantaa lacagta. laakiin seed drill waxa la yiraahdo oo beeraha waaweyn ayaa loo isticmaalaa si loogu abuuro miraha aad u fara badan. beeraha waaweyn ama 100 hektar ha ahaato ama 200 hektar ha ahaato iyo mararka qaar xitaa 10 hektar ha ahaato, waxaa loo isticmaalaa beerahaas waaweyn seeder si miro badan loogu abuuro oo aan qudaarta ahayn sida wheatka oo kale, maize-ka oo kale iyo qudaaraha qaar xataa mararka qaar saas ayaa loo abuuraa. ileen qudaaro waxaa jira aan la talaalin oo si toos ah dhulka loo geliyo sida karootadoo kale. seedka marka uu soo baxo uu banaanka yimaado waxaa loo yaqaanaa seedlings. geed yar ayuu noqonayaa, seedlings ayaa loo yaqaanaa. seedka marka uu soo dhalanayo uma baahna cunto lagu shubo iyo nafaqo lagu shubo, ee wuxuu isticmaalayaa nafaqo seedka la socotay. laakiin markii uu seedling noqdo oo geed yar uu noqdo, markaas weeye marka uu u baahan yahay inuu samaysto cuntadiisa. markaas oo cuntadiisa uu samaysanayo, geedka yarkaa ama geedka weyn wuxuu u baahan yahay qorax iyo iftiin ayuu u baahan yahay. wuxuu kaloo u baahan yahay biyo iyo minerals. wuxuu kaloo u baahan yahay carbon dioxide waxa la yiraahdo oo hawada laga helo ayuu u baahan yahay geedkii. intaas markii la isku daro ayaa waxaa loo yaqaanaa waxa la yiraahdo photosynthesis oo ah nidaamka ama qaabka geedku uu ku samaysto cuntadiisa oo anaguna hadhow aan uga faa'iidaysano. marka intaas ayuu u baahan yahay CO2, biyihii, mineralskii iyo qoraxdii ayuu u baahan yahay. CO2ga marka muhiimadiisa waxaa ku tusaysa xataa greenhouse-yada waaweyn markii la dhisto wadamada reer galbeedka oo kale, oo ama galaaska lagu wareejiyo oo hawo badan aysan soo gelayn, geedkii si fiican uma korayo. marka sidaas darteed haamo ayaa lagu keenaa, CO2ga ayaa lagu dhex sii daayaa greenhouse-ka si geedihii si fiican ay ugu koraan. laakiin dabcan haddii greenhouse-kaaga dhinacyada uu shabaq ka yahay oo kasoo gelaysa hawada, insha allah dhibkaas inta badan ma u baahanaysid, adiga kuma qabanayo. marka waa maxay saddexda shay ee seedku u baahan yahay si uu u soo baxo? saddexdaas shay aasaasi u ah seedka. saddexdaas haduusan helinna ma soo bixi karo seedku. dabcan waa anaga hore usoo sheegnay in geeduhu ay u baahan yihiin water, minerals, carbon dioxide iyo sunlight si ay cuntadooda usoo saaraan oo u koraan. geeduhu intaas ayay u baahan yihiin. seedku marka uma baahna sunlight iyo carbon dioxide, inta kale wuu u baahan yahay iyo kuwa kale. marka kuwaas ayaan uga sheekaynaynaa videogan. midda koowaad oo marka seedku u baahan yahay waa biyaha. cagaftan waxay beeraysaa dalag, laakiin si kasta oo ciidda aad u diyaarisid oo u hagaajisid, saddexdan shuruudood haddii aan la helin seedku ma soo baxayo. marka sida aan niri, shuruudda koowaad oo ugu horeysa inuu geedku uu helo biyo ku habboon. qoyaan ayaa loo baahan yahay si abuurku u gaaro heer uu soo baxo. marka qaybtan koowaad waxaan uga sheekaynaynaa qoyaanku sida uu u saameeyo iyo sida aad uga faa'iidaysan kartid qoyaanka. marka qoyaanku u baahan yahay seedku si uu u soo baxo wuxuu ka helayaa ciidda
ama media wixii kastoo aad ku koriso wax kasta oo mirta ku dhex abuuran tahay ayaa la rabaa inay biyihiina siiyaan marka qaabka uu seedku uu biyaha ciidda ugala soo baxo oo seedka ay usoo dhex gasho waa wax loo yaqaano diffusion ama waxaa la yidhahdaa imbibition marka biyaha sida lagu yaqaano biyaha waxaa lagu yaqaanaa meeshii ay ku badan yihiin ay ka tagaan meeshii ay ku yar yihiin ay aadaan haddaa fiirisa biyahaas kanaalka ku socda waxay aadayaan meeshaas ay ku badan yihiin ayay ka tegayaan waxayna tegayaan dhinacyada meesha ay biyuhu ku yar yihiin marka qaabka uu seedku u shaqaynayana waa sidaas oo kale seedka waxaa la rabaa biyaha ciidda ku jira inay ka badan yihiin si seedku uu u soo jiito biyihii oo ay seedka u soo galaan marka sida caadiga ah biyaha ku jira seedka ileen ma qalalna seedkii inkastoo kor uu kaaga muuqdo inuu qalalan yahay 10% ilaa 13 oo biyo ah ayaa ku jira seedka sida caadiga ah oo weliba biyahaasoon biyo ahayn waxayna ka yar tahay biyahaas midda ciidda ku jirta inkastoo ciiddu ay u muuqato mid qalalan inay tahay inta badan ciidda ayaa ka qoyan seedkii sida uu yahay marka biyihi ayaa waxay kasoo tegayaan ciidda waxayna isugu imaanayaan seedkii ilaa anaga sheegnay inay biyuhu kasoo tagaan meesha ay ku badan yihiin oo ay soo aadaan meesha ay ku yar yihiin marka biyihii seedkii intay aadayaan waxaa dhacaysa in cellskii seedku ay bararaan oo pressure ay noqoto pressurekaas waa sida taayir la areynayo kale camal ayay noqonaysaa marka pressurekaas ayaa ku soconaya biyihii ilaa pressurekii uu keeno inuu gaaro seedkii mid soo dhasha haddii marka pressure ku filan uusan imaan oo pressure ku filan uusan imaan seedkii ma dhalan karo taasna waxay ku dhalan kartaa in biyo ku filan xilli fiican ay ku jiraan ciidda oo ciidda ka soo taga oo seedkii soo aada oo pressure u sameeya laakiin geedaha kala duwan qoyaanka ay u baahan yihiin si u soo baxaan waa kala duwan yihiin geedaha sida kuwa la yiraahdo grass family-ga oo ay ku jiraan cerealska qamadigoo kale geedahaas yararka ah waxay u baahan yihiin 30% ilaa 40% qoyaan ah inuu noqdo seedkii ilaa wanagii sheegna markii hore wuxuu ku bilowda 10% ilaa 13 marka waxaa la rabaa qoyaanka gelaya seedka inuu gaaro 30% ilaa 40% si u soo baxo seedkii laakiin maadaama chemicalkoodu ay ka duwan yihiin geedaha kale qaarkood ayagu waxay u baahan yihiin 50% ilaa 60% geedahaas marka qoyaanka tirada badan leh u baahan waxaa ka mid ah cottonka kale soybean mid la yiraahdo kale iyo xataa peanut seedka ayaa ka mid ah kuwa u baahan 50% ilaa 60% inay gaaraan marka geedaha kala duwan waxay u baahan yihiin qoyaan kala duwan si u soo dhashaan mirahoodu laakiin biyaha uu qaadanayo seedkaas waxyaabo badan ayaa saameynaya oo biyihii inuu si fiican u qaato u diidaya waxaa ka mid ah in qaarkood ay leeyihiin qolof adag oo ay adag tahay inay biyihii sahal ku dhaafaan waxaa kaloo ka mid ah waxyaabaha saameyn kara in markii hore seedka aadka u qoyanaa iyo midka qalalnaa sida ay biyaha dambe ku qaadanayaan inay kala sahlan tahay maadaama markii hore haddii 30% ahayd qoyaankoodu iyo haddii 10% uu ahaa qoyaankoodu isku mid maahan hadhow sida u soo baxayaan waxaa kaloo saameyn kara biyaha ay isticmaasho ma biyo nadiif ahaa mise waa biyo halaysan oo eber ah ilaa waanagii niri biyo hadday nadiif yihiin sahal waxa ah inay aadaan meeshii biyuhu ku yar yihiin marka biyo wasaqa hadday yihiin waxay saameynayaan seedkii soo bixi lahaa waxaa kaloo saameyn ku yeelan kara biyihii iyo seedkii ma isgaari karaan oo ciiddii haddaa biyo ku shubto oo ay biyo leedahay seedkii iyo biyihii inaysa isgaarina laga yaabaa waxyaabaha isku gaari karinna waxaa keeni kara oo ka mid ah in ciiddii iyo seedkii aysa isku dhaganin oo boos u dhexeeyo marka biyo kasta ku shub haddii seedkii iyo ciiddii aysa isciriirin isqabanayn biyihii ma gaarayaan seedkii taasna waxyaabaha saameyn kara ayay ka mid tahay inuusan seedkii soo bixin oo biyihii aysan gaarin marka sida aan sheegnay kowdka ama qolofta saaran seedka waxay saameynaysaa biyihii inuu qaato marka inkastoo qolofta marmarka qaar saaran loo baahan yahay faa'iido ay leedahay haddana haddii uu yahay qoloftaas inay adag tahay in biyihii ay dhaafaan dhibaato ayay noqonaysaa inuu seedkaas si dhaqsa oo sahla ku soo baxo maadaama qolof adag oo biyihii sahal ku dhaafi karin uu leeyahay sababtaas darteed ayaa seedadka ama abuurka aadka u adag tahay qoloftoodu inay biyihii sahal ku dhaafaan mararka qaar waxaa la sameeyaa biyo ayaa lagu sii shubaa waa la sii qooyaa si hadhow ay u jilcaan oo biyaha ku dhex jira seedkaas u bato markii hadhow aad abuurto waxaa sahal ah marka inay biyihii sahal ku dhaafaan sababtaas darteed ayaa loo qooyaa kuwaasoo kale marka insha allah qaabka loo qooyo
iyo dalagyada kala duwan iyo kuwa la qooyo iyo faa'iidada ku jirta iyo wax soo saarkooda iyo tijaabo badan iyo baaritaan badan oo FAO iyo hay'ado kale ay ka sameeyeen iyo sida ay beeraleydan uga faa'iideysan karaan insha Allah qaabka loo qooyo seedska adag oo qolofta adag leh video ayaan ka samayn doonaa insha Allah marka inkastoo ay sahlan tahay ama seedka uu awoodo inuu biyo uu soo qaato uu soo jiito maadaama biyuhu ku yar yihiin waxaa saameyn marka ku yeelan kara field conditionka ama beerta xaaladda ka jirta ciidda xaaladda ka jirta ayaa saameyn ku yeelan karta intii uu soo qaada lahaa sidii loo gaaro meeshii loo baahnaa oo water contentigii loo baahnaa seedku inuu gaaro dhibaatooyin ayaa uga imaan kara mararka qaar qaabka beertu ay tahay tusaale ahaan biyo haddaysan jirin ama roob uusan di'in markii aad dugto mirtii oo kale ama intii ciidda aad diyaarinaysa ilaa ciidda markaad diyaarinayso hawo badan ayaa soo gelaysa qalayl badan ayaa imaanaya marka haddii aad ciid biyuhu ku yar yihiin ama qalalan aad seedkii geliso waxa u imaanaysa marka in germinationkii aysan hagaagin oo sidii la rabay aysan noqon oo biyihii aysan gaarin meesha aad mirta gelisay marka ciidda biyaha ku jira hadday wax yar yihiin oo aan aad uga badnayn midda seedka waxaa laga yaabaa seedkii inuu haddii 10 uu ahaa 20 ilaa 25% inuu gaarsiiyo biyihii dhex galay taasna marka mid ku filan ma ahan inuu seedkii uu soo baxo marka haddii aan ciidda inta uu ku jiro seedkii aan biyo la siin iyo qoyaan ama roob uusan imaan ama aadan waraabin waxaa dhacaysa inuu seedkii ciidda isaga xaraysanaado kaliya uusan waxba samayn oo saasay tahayna meeshii uu ahaa 10% uu hadda 20 ilaa 25% uu gaaray oo moisture content inuu gaaray temperature kululna uu ka jiro ciiddii dhexdeedii marka haddii seedku uu saas ahaado xaaladdaas hadduu kusii jiro isagoo biyo ku filan aan helin maalmo hadduu kusii jiro marka waxaa dhacaysa inuu seedkii xaaladiis ay xumaato uu sii liito ileen maadaama biyo badan ay ku jiraan inay maaragtay bahalla ay cunaan inuu rotten organism wax la yidhahdaa jira oo ciidda ku dhex jira inay kuwaas haleeyaan marka waxaa muhiim ah in seedka iyo biyaha ku jira ciidda ay iswaafaqsan yihiin si uusan waqti dheer uusan isaga xaraysnaan seedkii ilaa waqti dheer hadduu ciidda ku xaraysan yahay asagoon waxba samaynayn meesha ayuu ku halaabaya uuna ku dhimanayaa kabacdina markaas waxaa dhaxaysa in xaalad xun ay timaado oo ah inaysan meelo badan oo ka mida beertaadii aysan ka soo bixin mirihii aad ku abuurtay oo teelteel ay noqoto meelna wax yar ay ka soo baxdo meelna xoogaa ay ka soo baxdo waxa ugu badan oo dhibaatadaas keenayana waxa weeye biyo waa ka jiraan oo ciiddii xoogaa biyo waa gaarsiisay laakiin biyo ku filan inay mirti ku soo baxdo ma ahan midda labaad oo seedku u baahan yahay marka si fiican ugu soo baxo waa oxygenku marka waa midda labaad ee asaasiga ee muhiimka ah inuu seedku helo si u soo baxo oxygenkaas la'aantiisna seedkii ma soo bixi karo oo waa ku neefsanaya sida annaga aan ugu baahannahay oxygen ayuu seedkiina ugu baahan yahay marka waa muhiim inuu helo laakiin oxygen hawada kuma yara hawadaas aa arkayso ayuu oxygen ka buuxaa marka ciiddana wuu ku jiraa laakiin wuxuu noqon karaa xaaladaha qaar ayaa waxaa keeni karta in seedkii ama abuurkii uusan helin oxygen xaaladahaas marka waxaa ka mida oo keeni kara in ciiddii oxygen ay weyso in oxygenkii booskii ee ciidda ku lahaa ay bedelaan biyo aad ka buuxisa meeshii biyo haddii laga buuxiyo oo 2 maalin ilaa 3 maalin ay waterlog noqoto oo ciiddii ay biyo dhex fadhiyaan waxaa dhacaysa in seedkii uu waayo oxygen kabacdina uu meesha ku baabo oo ku qormo oo uusan waxba ka soo bixin ayaa dhacaysa laakiin waxaa jira geedo khaas ah oo aysan oxygen la'aantaas aysan saamayn sida bariiska oo kale kuwaas oo kale haddii ay ku hoos jiraan biyaha oxygenkaas waxba uma dhibayo oo sida dalagyada kale ma ahan marka kuwa aan noocaas ahayn ma soo baxayaan oo waa ku dhimanayaan oxygen la'aantaas midda saddexaad oo marka uu seedku asaasiga u ah oo laga maarmaanka ahayn waxaa la rabaa in uu yahay heerkul ku habboon si u soo baxo heerkulkaas ku habboon hadduusan helin sidii la rabay uma soo bixi karo ama maba soo baxayaba marka seed kasta oo nooc kasta ah wuxuu leeyahay temperature ama heerkul ku habboon si uu xilli macquul ah ugu soo baxo marka 3 nooc ayaa jirta oo seedka laga fiiriyo oo u baahan yahay si uu helo heerkul ku habboon mid waxaa la yiraahdaa minimum waa midka ugu hooseeya oo kaas wixii ka hooseeya uu soo bixi karin midna waa maximum oo ah kaas wixii ka sareeya kulayl inta ka sareeya ma soo bixi karo midna waa optimum waa midka ugu fiican oo u baahan yahay seedku inuu ku soo baxo laakiin miraha kala duwan iyo seedadka kala duwan waxay kala leeyihiin saddexdaas waa u kala duwanta
oo kulaylka iyo qabowga u kala dulqaada og yihiin marka the minimum temperature midka la yiraahdo waa temperatureka sida aan niri wixii asaga ka hooseeya uusan geedku soo bixi karin xilli macquul ah uusan ku soo bixi karin qabowga intaas ka badan waa adagta inuu ku soo baxo laakiin badanaa midaan ma ahan mid waddankeenana dhibta sababtoo ah geedaha inta badan qabow saa'id ah oo waddankeena dhibo oo ku soo bixi waayaan miro ku soo bixi waayaan kama dhacdo maximum temperatureka marka waa temperatureka oo wixii intaas ka sareeya heerkulka intaas ka sareeya geedku uusan soo bixi karin mirtiisu marka temperaturekaas aan geedka loogu talagelin oo xilliga aan loogu talagelin haddii aad abuurto waxaa dhacaysa marka geedkii inuu meesha ku dhimanayo oo mirti ay meesha ku dhimanayso oo ku qurmayso aysa soo baxayn maalmo kooban weliba gudahood marka tan oo kale ayaa laga yaabaa marka inay waddankeena dhib u keento dadka beeraleyda ah oo miraha ay dalbanayaan laga yaabo in aan loogu talagelin kulaylka heerka waddankeena ka jira marka waxaa dhacaysa in marar badan aysan mirtii soo bixin oo aysan bannaanka imaan maadaama kulaylku uu saa'id uu yahay marka sidaas darteed waxaa muhiim ah qofku inuu iska fiiriyo haddii uu soo gato miro hadduu soo gato uu dabadda ka soo gato inta badan waxaa lagu qoraa temperatureka ku habboon mirtaas iyo bilaha la abuuro waddanka laga gatay marka dabcan waa inaad fiirisaa haddii aad awoodid oo aad ka fiiri kartid xilliga ku habboon mirtaas kaba soo qaadba geedku xataa haddii uu yahay geed waddankeena lagu abuuro waxaa laga yaabaa birahaas in loo diyaariyey oo loogu talagalay in lagu abuuro meelo qabow marka sababtaas darteed ayaa ula soconaysa marka xitaa kaliya mirti kaliya ma ahane geedaha xataa waxaa laga yaabaa inaysan si fiican u korin haddii kulaylka la dhaafiyo hadda baradhadoo kale hore ayaan uga hadalnay xilliyo waxaa jira aad u kulul oo aysan waddankeena ku habboonayn marka qofku markuu rabo inuu abuuro xilliga ugu qabow ee waddanka waa inuu ku aadiyaa oo ay markaas la qabsan karto marka sidaas darteed waa muhiim la iska hubiyaa taas laakiin meesha optimum temperatureka ama temperatureka ugu habboon geedkaas waa meesha oo siidku ugu soo baxayo xilliga ugu dhaqsiyaha badan oo ugu wanaagsan marka sidaas darteed waa in xilligaas ugu fiican oo optimumka oo siidkaas ku habboon waa inaad abuurtaa haddii aad haysatid siid aan marka xilligaas ku habboonayn oon ku fiicnayn ha abuurine midka ku habboon abuur kaasna xilligiisa la sug insha allah waxaan idiin rajaynayaa guul intaan video kale ku kulmi doono asalaamu calaykum waraxmatullah iyo beerasho wacan